Shabeelle waa madasha koowaad ee wararka ku salaysan xaqiiqda, dhexdhexaadnimo, sugnaansho. Noqo qofka ugu horeeya ee dhegaysta Shabeelle. bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegaystayaal ku soo dhawaada warka saacadda ee 11 barqanimo. Waxaan idin waramayaa anigu Cabdi Xaajiya. wararka ka imaanaya deegaanka Qalimo oo qiyaastii 30 kiiloomitir dhinaca koonfur ka xiga magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegaya inay weerar ku qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab saldhigga ciidamada dowladda ku lahaayeen deegaankaasi, halkaas oo ka dhacay dagaal xoog leh. Al-Shabaab ayaa dhowr jiha ka weerartay Qalimo, waxaana u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan saldhigga ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaankaasi, sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka. dagaalka ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa 2 qof oo rayid ah. saraakiisha ammaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle weli faahfaahin kama bixin weerarkan saaka ka dhacay deegaanka Qalimo, waxaase xusud mudan in muddooyinkii dambe ay soo badanayeen weerarada Al-Shabaab ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gobolkaasi Shabeellada Dhexe. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ayaa saakay waxay xukun dil toogasho ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka, kaasoo horey degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ugu dilay qof shacab ah. askariga toogashada lagu fuliyey oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Faarax Dhaqane Nuune ayaa magaalada Balad Xaawo wuxuu ku dilay marxuum Mawlid Baasho Cumar oo ahaa makaanig baabuurta sameeya. fagaaraha toogashada saaka ka dhacday ayaa waxaa ku sugnaa saraakiisha ciidamada qaybta 27aad, ehelada askariga la toogtay iyo dad kale oo u soo daawasho tagay. xiriirlaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay in dable xoogga dalka Cabdiqaadir Faarax Dhaqane Nuune lagu helay inuu dilka ka dambeeyey, isla markaana saaki xukunkii hore loogu riday ee dilka ahaa lagu fuliyey. ugu dambeyntiina 8 dumar ah iyo 2 carruur ayaa lagu dilay weerar xalay lala beegsaday deegaanka Arhaab magaalada caasimadda ee Sanaca. ugu yaraan 10 kale oo dumar ah ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen duqeyntaasi, sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee magaalada Sanaca. afyeen u hadlay falaagada xuutiyiinta ayaa sheegay in duqeyn labaad lala beegsaday dad u gurmanayay kuwa dhaawacmay, waxaana duqeyntaasi ku eedeysay Mareykanka iyo xulafada Sacuudiga hogaaminayo, balse dhinacyadaasi weli kamaysan hadal duqeyntaasi ka dhacday deegaanka Arhaab ee magaalada Sanaca dhacda. warkii saacadda waa naga intaa dhegeystayaal.